waad maqashay in badan faa'iidooyinka cabista biyaha balse maanta waxaan rabaa inaan kuu qeexo sideen u joogtayn karaa cabista biyaha mana aha wax aan meel dheer ka keenay ee waa wax aniga aan tijaabiyey oo aan khibraddeeda leeyahay balse taas muuqaalka qaybta dambe ayaan uga hadlaa ee hadda aan wax yar isdul taagno faa'iidooyinka biyaha si kooban mudane iyo marwo koobkaaga biyaha soo qaado soo dhawaaw hadda waxaan gudagelaynaa muuqaalkeena haddaa weli ila joogto waxa ii cad inaa muuqaalka xiisaynayso mudane marwo fadlan like saar muuqaalka channelkane hadduu subscribe ku ahayn subscribe dheh gambaleelkana furo si muuqaaladeena ay ku soo wada gaaraan dhammaantood waxaan rajaynayaa in aan wax yar waqtigaaga kaa lumiyey balse waxaan gelaynaa hadda muuqaalkeena sorry mudane maalintii waa inaa cabtaa 3 litir oo biyo ah oo u dhiganta 13 koob oo sayid ay u badantaa u malaynaa balse haddaad joogtaysid waa la qabsanay wax badan markaa bilaabayso waxaa laga yaabaa inay musqusha ku laalaabatid halka marwo adigane aad u baahan tahay inaad cabtid maalintii 2 litir iyo bar biyo ah oo u dhiganta 9 koob wax yar waa ka yartiin ragga balse waxaan inhayaa mudane iyo marwo hal si kooban ah bal ka warrama haddii dhammaanteen maalintii aan cabno 8 koob oo biyo ah waa halka ugu yar ayaan uga qabtay adigoo xagga iyo xaggaba aadin midda kale mudane iyo marwo balse ma ogtihiin jirkeena inuu ka kooban yahay 60% biyo biyaha inay muhiim noo yihiin waxaa noo caddaynayo jirkeena ayaaba inta badan biyo ka kooban biyaha faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah nadiifinta keliyaha iyo fududeynta xaajada markaa musqusha joogto iyo ka hortagga qaleelka maqaarka korjacta iyo waxay kaloo kaa caawinayaan inaad mar kasto dhalinyaro ahaato haddaad duqoodida xataa oo maqaarkaaga duuduumin miga aaminay haddaan ku dhaho sidoo kale biyuhu waxay leeyihiin cimri dheeri qadartu waa meesheeda qof walba xilliguu dhimanaya ilaaha og balse cimri dheeri ayay leeyihiin biyuhu waxay kale biyuhu ka qayb qaataan socodka dhiigga maskaxdaada oo active ahaato sankarowga wadna xanuunka iyo waxyaabo kaloo badan oo aanaa soo koobi karin haddaan dhahno maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka biyaha waxay u baahanee muuqaalo iyo xalqado dhaadheer balse labada faa'iido oo ugu qaalisan oo maantay dadka waqtiga ugu badan waqtigooda oo ku lumo waxa waaye inay biyuhu leeyihiin faa'iidada miisaan dhimista hadduu miisaankaaga zaa'id u badan yahay adag ku qanacsanayn iyo murqa dhisida haddaa reer jim tahay way kaa caawinayaan biyuhu ma garatay mudane iyo marwo mar kale soo dhawow hadda waxaan ka hadlaynaa qaybtii ugu muhiimsanayd muuqaalkeena sideen u joogtayn karaa waxaa ku ballanay inaan cabno 8 koob haddii ay badan tahay 13 koob iyo 9 koob madax xanuun subaxii markaa soo kacdo ku bilaaw noloshaada biyo markaa soo kacdo cadaysato weyse qaadato wax walbo samaynaya salaadaada tukatid yaana kugu dheereen 2 koob oo biyo ah cab haddii aad iskuul aadaysay shaqo aadaysay whatever waxaad iska aad quraacdaada ka hor ama kadib 1 koob biyo ah qac ka sii meeqaan maraynaa hadda 3 koob duurkii intaadan qadin ka hor 2 koob cab meeqaan hadda maraynaa 5 koob oo biyo ah 3 koob ayaan inoo har duhur iyo casr inta u dhaxayso 2 koob biyo ah cab meeqaan hadda maraynaa 7 koob habeenkii markaa cashaysa kadib ama cashada ka hor 1 koob qac ka sii 8 koob halkaas ayuu ku dhammaatay haddii adiga aad ka badan rabtidne mar walbe waqtiyada cunada waqtiyada salaada tukanaysid waxyaabahaas oo kale qac ka sii sababtoo ah haddaan annaga muslimiin nahay waxaan leenahay mar walbe routine ah 5 waqti in aan tukano salaada 5taas waqti haddaad dhaada xataa waqti kasta min 1 koob biyaan caba waa 5 koob 3 koob kale waqti kale waa u raadin kartaa haddii aan nidaamkan ku soo bandhiga aad ku qancin xataa mudane marwo muuqaalka xiga ayaa noo balan ah wixii ra'yi inoo hayso qaybta commentiga nagula wadaag channelka subscribe garay like garay share garay ma garatay haddii facebooka aad naga daawanaysid followga like-ga shareka waxa dhan waa inoo samayn kartaa waxaana kuu keenaynaa muuqaalo kan ka sii xiiso badan waa rajaynaa in aan wax badan kala faa'iidaysano mahadsanidin dhammaantiin